dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in guddi ay u saartay baritaanka heshiiskii dekada Berbera ee dhexmaray Somaliland iyo Imaaraadka Carabta. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo ku hor hadlayay golaha shacbiga Soomaaliyeed ayaa waxa uu tilmaamay in heshiiska Imaaraadka Carabta iyo Somaliland ay kala saxiixdeen uu ka horeeyay xukuumadda uu majaraheeda hayo. waxa kale uu tilmaamay in guddi baritaan ku sameeya arrintaasi ay u xil saareen. anigoo tixraacaya qoraalkii iga soo gaaray guddoonka golaha shacabka bishii saddexdii bishii May 2017 kaas oo ku saabsanaa heshiiskii Berbera waxaan cadeynayaa qodobadan sida ku cad dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed qodobkiisa 7 farqadiisa 2 4 iyo 5 waxaa waajib nagu ah ilaalinta madaxbanaanida iyo midnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed. 2 waxaan cadeynayaa in bilowga hawshan ay ka horeysay 8 Febraayo 2017. sidaas awgeed dawladdu waxay ku howlan tahay sidii ay u heli lahayd xog dhameystiran oo la xiriira arrintaas. 3 markaan helno xog dhameystiran waxaan la wadaagi doonaa golaha shacabka iyo dhammaan hay'adaha oo ay khusayso. goboleedka galmudug oo ka dhisan gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa si rasmi ah u shaaciyay taageerada ay u hayaan aqoonsi ay Somaliland ka hesho beesha caalamka. gudoomiyaha guddida amniga iyo difaaca ee baarlamaanka galmudug xildhibaan Cali Baashe Jimcaale Abdido ayaa waxa uu sheegay in Somaliland xilligan mudan tahay in la aqoonsado. anigu oo ah gudoomiyaha amniga iyo difaaca dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan baarlamaanka xildhibaan Cali Baashe Jimcaale Abdido waxaan qabaa inta wax garadka inay waajibtaa maanta inay Jamhuuriyadda Somaliland yiraahdeen hambaliyo goonistaagooda. waxaan si gaar ah ugu hambaliyanayaa Jamhuuriyadda Somaliland oo goonistaagooda maanta ku dabaaldegaysa. waxaan leeyahay jira oo jooga waxaan ku talin lahaa oo dhilaha la taageero goonistaagooda kaas oo aan u arkay inuu dan u yahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo islaamka. xildhibaan Cali Baashe waxa uu si adag ugu bogaadiyay Somaliland waxyaabaha ay qabsadeen. waxaan ku talin lahaa haddii uu dadku fakarayo xaasidnimo ma fiicna. Somaliland waxa ay qabatay cid qabatay ma jirto. horumar ayay gaartay, dalkooda ayay dhisteen, waxbarashada ayay guul ka gaareen, amniga ayay guul ka gaareen, calaaqaadka caalamiga ayay guul ka gaareen. ma dhici karto ama ma wanaagsana nin dhowriyaan ah oo luga gacan ka jaban qalbigiisu jabay niyadu ka jaban tahay goor ka ciddoonaan loogeyn iyo nin socday oo talaabsaday oo wixii loogu talagala qabsaday in la isku hayo. shalay ayagaa noo yimid maantana inay keligood gooni isu taagaan xaq ayay u leeyihiin.